بن الخطاب رضي الله عنه منبر كان خطبته كوري isagoo oo dhar aan lagu ogeyn xiran dhayro qurux badan oo lagu ogeyn buu xidhay Umar bin Khattab radiyallahu anhu markaasuu yiri isma'uunu wa atii'uun wa ilaahay ka baqo maqlo ya ateeca buu yiri diinta ilaahay baan wadaaya saxaabada kamida istaago yiri la sam'a laka wallahi wala taa'a maqalna nagu malihid hogaansanaana nagu malihid hum maxaa dhacay isku jooganaad xidhantahay waa kugu cusub yahay ma baytul muslimiinta u dustay bii ka takeenta dharkan buu armay maqlaysaa tolo may maqlaysaa intan kugumaan ogeyn buu yiri ka takeentay buu intan kaasuu Umar xishooday wata ra'sahu weyno bidaar weyn lahu Umar bin Khattab radiyallahu anhu saaxiba salaatin azima wa azima kaasuu Umar xishooday ra'sahu halal amsaajka dhexdiisii baa leeyahay isku jooga ka takeentay عمر مو أورن ما هذا حسابنا سا ما هذا وحي ويدينا سا أنا أمير المؤمنين أنا أمير المتقين أنا إمام صالحين أنا هبين كورنتو كذا أنا إذن حريي أنا كوري إذن كقبطي عار إلى هدلاي عمر مو أورن ده وحشوضون هو سب عمر وهيك على لحي هذوك هذا إن كيسب أكع عبد الله بن عمر كعب بكوارك أبي يحرج كجر ورا أبهي واتقانا أبي واننديرو الله بالله فوق waxaan u xiran yahay biyo ana kayga adigu ogeydeen siiyay biyo isku toshay biyo waa kayga kiisi isku tosh iska fadhiistay biyo ninkii kaasi al'aana ya Umar qul nasma imika biyo dheh aan ku maqalnaa ha tusaalooyinka imika ka dhalinyarada la rabo waxa la idin leeyahay reer galbeedka transparency leh ha oo maxay toolay lama ogola inay wax qaldani ay baxaan ha wala isqabanaya gabadh wasiirad dhulkii aan joogay kamid ahayd ha ayaa waxa la siiyaa qof kasta oo dawladda u shaqeeya card uu bas tareenka ku koro card waad galaysaa dheed meeyar baa taab magacaagi baa soo baxay waa wasiir heblaayo waa £1 waa $1 baa la mariyaa waxa loogu talagalay cardkaas aroortii shaqada markay bilaabmaan ilaa gelinka dambe shanta wixii ka dambe dawladda looma shaqeeyo shanta galan wixii ka dambe hadaad soo baxdid cardka iyo private ka isticmaal gabadhan waa wasiirad way soo baxday maalin waxay ka timid kaarkeedii private ka bay ka timid kii dawladda shandada ugu jira dheed way marisay markiiba maxaa soo baxay kaarkii inuu yahay kaarkii wasaaradda xilliguna waa habeen xilligii wasaaradda loo shaqeynayay ma aha aroortii baa joornaalka lagu soo qoray wasiir heblaayo oo xalay toban dheed marisay hadda waa $1 warbari dhageystaadeen xalay waa $1 waa bas sugaadeen Allah yaxfadku sugo $1 weeye hadda joornaalka lagu soo qoray xilligaasi xilli dawlad loo shaqeeyo maaha kaarkaasi dadban ayay u isticmaashay ha hay samaysay maxay tiri bal maxay tiri halkiiba shaqada kaga tagtay jaamacadda markaa ku jiray go'aan fadhinaa on the spot halkiiba kaga dhaqaaqday xilka oo tiri marba hadii dhimmadeydii maaliga ahaa sharaftaydi iyo cirdigaygii hadii wax laga sheegay dhiidha kaliya waa $1 taa kaliya hadii wax laga sheegay waliba shaqada ka tagtay maaha waxay tiri inta noolahayna siyaasad dib dambe u soo gali maayo hada kalaam kaas waa tusaale kana waa tusaalaha Umar imkaan ku sheegay radiyallahu anhu wa ardaa ha oo ay tahay shay la sameyn karo qofku ku dhici karo maxay tolo uu sameeyo inagana maxay noo dhaqana hadaad qaadi weydaa doqontahay somaha haddii halkaa mar ilaahay ku fadhiisiyo ya od haddaad dhammayn weydood ku dhici ayaa sultaankii reerkaaga ku odhanaya soonagii wasiirka kaa dhigna de maxaad caruurtii u samaysay maxaan u sameeyaa aad bal guri unuga dhistid meesha waa keen guriga dab waa dhowr iyo 100 kun keenu ka keenna aadu ma tiraahdo way ku siin lahaayeen dama lihin haaya inagu anu ma $500 baa la igu yiri ka qaado sanadkii waa $6,000 gabigayguba gurigan aad leedahay dhis hadaa 50 sano u sii shaqeeyo ma dhisi karayo min ayna laka hada kaaga timid marka inagu waxaynu isku waafaqnay oo inuu heshiis ku nahay in la kala qaato ka qaadan waayna waa doqon intaas ay noo dhaqano inoo heshiisa marka mar uu waxaan leenahay Allah maryaa halka igu fadhiisiya Allah mar intay ag joogtaana ha qoydo aniguna boqolka dambe dhali doona okay ha noqdaane mar anigana yaa igu fadhiisiya dhaqankaas marka siyaasadii waxaynu u fahanay رد الحقوق لأصحابها عمر سغا اسك بلاابay عمر سغا
iska bilaabay ata'muruuna annaasa bilbirri wa antum tatluuna alkitaaba afalaa cumar wax allaale wixii hanti u lahaa wuxuu guryo lahaa wuxuu beero lahaa wixii khadaamiin wax walba wixii jiray intuu qaaday buu yidhi cumar baytulmaal muslimiinta ha la geeyo faatima binta cabdilmalik binti marwaan oo inantii u qabo ayaa wax allaale wixii u shaqaynaya oo dhan la yidhi kuma shaqaynayaane orodoo maxay toole laxooxdaada adigu qaraaco dharkaaga adigu meedho faatima weligeed alayda gacanteeda wax ku baqaban bintul khaliifati wajadduha khaliifo markaasuu u yeedho ku yidhi faatimaay sidii hore lagu yidhi wax allaala wixii aabbaha aad ka qaadatay waan celinayaa buu yidhi khaatimkaa fidigan xidhanahay baa ugu yare kaana intuu siibay ayuu baytulmaal almuslimiin ha lagu celiyo dhaxamaha dhar aan ka xidho iyo dhulku markuu kulul yahay mid aan xidho iyo faras iyo seef aan ku dagaal galo intaa baytulmaalka muslimiinta ha layga siiyo wax allaala wixii intaa dhaafsan ha loo celiyo faatimaay adiga inamadaada iyo hablahaagu saan u noolay haddaanad u noolaanaynin tolkaa iyo reerkaa ku noqo waan ku furayaa odo iga tag kaasay qaylida faatimo tiri maxaa igu watay khilaafadan maxaad ka doonay sideenii horaan ku doonanay sideenii horaan ka fiicneed laakiin waxaan kugu bedesho cumarow ma jiro halkaad ku noolaataan ku noolaan saad u noolaataan u noolaani markuu cumar isagii iska bilaabay inuu celiyo xuquuqdii wax allaale wixii muslimiinta laga qaaday ayay sahal noqotay maxay inuu dadkii kalena uu yidhaahdo waranba waan celiyeye iska celiya yaa bani umaya waxaan xaq markii horeba gardaraad maxay tole ku qaadateen kadibna wuxuu bilaabay markuu xuquuqdii dadkii u celiyey masaajidkuu ka sheegay qofkii beer laga dhacay qofkii dhul laga qaatay qofkii addoon laga qaatay qofkii la dulmiyey cid maaha reer madiine maaha waa baytulmuslimiinta oo dhan ayuu yidhi khudbadaha jimcaha ha laga sheego ha ii yimaadaan buu yidhi aniga ama xukaamtayda ha u tagaan buu yidhi meelahaa fadhiya nin walba xaqiisii maxaytole ha loo celiyo markaasay islaamihiiyo tukubaya odayaashii gaboobay oo tukubayo ahli beydka u badan soo khudbadda jimcaha kuma akhridaan كما مقشان علماء إذن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ثم أخردان آيات عمر بن عبد العزيز بخطبة الجمعة كدري رضي الله عنه وأرضاه وهل كان لولا كي آل بيت كي يؤهر بني أمية علاد دي كتحنا عذي أيا علي بن أبي طالب يركم إذا لقصوا هذا القارج خطبة الجمعة قار فكسير عمر يا الله صو هذا القادم مرضا بآل بيت كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هل كاسو بلاب مكاسي أمد يوردان الصف صوغش عمر وأنا للدلمية وحيجي محيطه للنوس علي مركو حقوق دي مادقة هاي عليي وهو عمر كو حجي دادكي ظالمين تهاية دادكو نبعايين حكم كينو كقابو ودادكو دادكي جعلايين أي حكمك ومحيطه وديبو خالد بن ريان سليمان بن عبد الملك وحوها هرجوغيسي عيدك ومنكو سليمان صاو ايغو يراهدو كتق ايو خالد بن ريان كلك كجري جري دibada bala isku lama bixi jirin markaasay dadku dhiigiisa iska aruurin jireen inaanu dhiigu ku daadan maalintuu qabtay ayuu Umar yiri اللهم إني وضعت سيف خالد بن ريان اللهم لا ترفعه أبدا إلهو خالد بدن بو قردر ku dilay maanta seeftiisi hoos baan ka yeelay ilaahu inta adduun ka dhiman seeftiisa mar dambe Allah kor ha u qaadin buu si ummadda dadkii zaalimiinta ha uga uu maxay uga qabto ayuu madax ka dhigay Amr ibn Muhajir al-Ansari wala hadlay wuxuu yiri Amrow wallahi innaka la ta'lamu ma bayni wa baynaka qaraba xilka aan ku dhiibay buu yiri tolnimo aan kuugu dhiibay ma hayo waxay naga dhaxayo tolih ma jirto illa qaraabata al-islaam mu'min ina tahay baan ogahay walakinni sami'tuka hoostan ka dhageysan jiray buu yiri wa anta tukthiru tilawata al-qur'an adigoo qur'aanka aad u akhriya wa ra'aytuka tusalli waxaan ku arki jiray buu yiri adigoo ku tukanaya oo salaada la dhuumanaya meel aan lagugu arkaynin inaad ku tukatid ayaan kugu arki jiray buu yiri fakhudh hada sayf iga qabo buu yiri seefta maanta wixii ka dambeeya waqad wallaytuka harasi ciidankaygiyo dhan ba adaan ku dhibay muxuu ku doortay laba arimood inuu qur'aan akhris badan yahay iyo inuu salaad tukasho
inuu maxaytoola badan yahay daalimkii bataaxi badaalka ahaa Khalid ibn Riyadna hoos baan ka dhigay muxuu yiri 6 wuxuu joojiyay Umar markuu xuquuqdii celiyay madaalimtii celiyay ظالمينتي xilka ka qaaday waxa jira waxay oran jireen almuksina waa la yiraahdaa reer bani umayya ummadda ku xukumay waa tukaanada iyo ganacsatada iyo waxa soo kale waxaan imika aatada cashuurta way cashuurta yalla sixirina subhana rabbika kawde muksi baa la yiraahdaa ايش هو المكس ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam muslimiinta iyo madaxdooda xuquuqda maaliga ee ka dhaxaysa waa zaka xuquuqda kugu waajibta inaad bixisid eed u dhiibtid baytul maalka muslimiinta waa zakada kugu waajibtay zakadana inagu imka waxaynu u bixinaa maxay hoos baynu u bixinaa tijaarta ku faano inta yara kuyuga loo soo galiyay ka helaan ها ما هسلاس احفظ ماء وجه الفقير فقير كسبول كي تلقى انه الباب كاغا كوغو سو قراعو زكاه الفطر كوغو سو غلما تحفظ كرامه الانسان انسان كان كرامتي سوا وين غوريغي زكاه ugu tagta oo adiga taajirka ah iyo miskiinka saboolka ah cilaaqad idin ka dhaxaynin baytul maal muslimiinta lagu wareejinaya iyaga u tiro koobsan tahay يا يتيمة يا أغونة يا فقيرة يا مأسورة يا دين لقوليه يا غارمة سديد ديبة إنما صدقات للفقراء أي أقرنتها بيت المال المسلمين تأوجين إياه أي أمضي يا كحرنتها بيت المال المسلمين تاجر كنا أنت كواجبتي أيو ديبة يا بيت المال المسلمين علاقة إذا كان حي سوا محي زكاة إلا بحي محا صور راعة الصدقات والتطوعات والنذور والكفارات انت لفتنا waxa lagu shubaya maxay baytul maal muslimin ka lagu shubaya soo warad maaha inta hadii kari weydo oo baahidii dawladda muslimku ay ku awdi weydo baahidii bulshada inay zakadii iyo nafaqadii iyo sadaqadii iyo kafaaraadka iyo nuduurtii shanta iyo الركاز ومحي ووحيابها دولك كاغا سو بخا ذهبك حديدك ألمونيومك بترولك نفطك غاسك ذهبك سيلفرك وحا سو دولك كاغا بخان سوما ركاز بيت المال المسلمين ايا قادنهيا انت هدي مسلمين ku awdi waayaan ay ku bixin kari waayaan baahidii bulshada ayaa amiirka muuminiinta iyo mas'uuliinta waxa la yiri ummadda waxaad ka qaadaan wax dheeraad ah hadday intaas ku filnaatana waajib lagu malaha in laga qaado muksi baa la yiraahdaa way umar markaa muxuu yiri walladhi nafsi biyadihi nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam isagoo ka hadlaya dambiga muksiga waa taan ku tilmaamay waa lacagta bulshada laga qaado min geyri wajhi xaqin laguna bixiyo fi geyri wajhi xaqin ma ku celiyaa mise waad faanteen ummadda xoolaha laga aruuriyo een xaq loogu lahayn ee lagu bixiyo meel aan xaq loogu lahayn ayaa diinta islaamka muksi la yiraahdo ummadda waxa laga aruuriyo een xaq loogu lahayn koow ee haddana lagu bixiyo meel aanay ummaddu ummadda dan uga ahayn sababta qaadaan lagu bixiyo walladhi nafsi biyadihi buyur gabadhii la rajmiyay ee dhagaxa lagu rajmiyay ee zinaysatay ee saxaabada kamid dhiigii markuu ku soo duulay lagu rajminayay taafafa dhiigeedii buu maxay tolay ka faanay gabar zaaniyada dhiigeedu nagu soo duulay ayu rasuulullaahi walladhi sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi laqad taaba tawbatan law taabaha saahibu muksin laghfira lahu حديث صحيح في البخاري وقر والله بيقول قبضاسي وحي توبت كانتي توبت صاحب مكس قفكا أمدا كأرورسنا يحول آن أمدا كواجب حدنا قلنا يمين آن أمدا دم أهين عند الله وعند رسول الله قفكاسي وحو كدم ببنيهي قبض زنيستي بكاسي كدم ببنيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حديث كلوحة وتلمامة هيا أما إلا تكتابة حديث كاسنه صحيح إمام النووي حديث كاسنه صحيح مسلم بوكجرا إمام النووي حيري فيه
أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلامتهم عنه، ولكن ذلك منه وانتهاكا لحقوق الناس وأخذ أموال الناس بغير حقها وصرفها في غير وجهها. تلمامه عمر لها وانسوكو بيسان اسكتكو نعشهية مقصيان عمر وادقي ومدى يان لغا قادين بير وحان واجب كوحي waxa ku waajibaha laga qaado wuxuudana ha loo sheego wixii loogu sameeyo hana la tuso wixii lagu sameeyo. subhana rabbika. meelaha ugu necab yihiin muslimiintu inay ka hadlaan, meelaha ugu necab yihiin oo miyaanadna rumiyaanadna aaminaynin. war waa la is aaminahayaaye aaminku ha dhamaade ee ummadan wax toban baan ka qaaday, toban baan ummadaa ka qaaday, tobankiina halkaasaan geliyay wax allaala wax dhibaato leedahay ma leh.